waxaana wanaagsan asxaabteena qaaliga markale barnaamijkeenii excelka waxaan idin tusaya haddii la yidhaahdo purchase sales iyo lasoo alaabta ku hadho marka ugu dambeysa bakhaarka iyo lasoo faa'iidada iyo khasaaraha alaab aad shirkadaada iyo qaabka aad u xisaabinayd halkan idin tusaya markaas la socod wanaagsan haddaad tusaale 30 ama 20 mobile aad soo iibsatay mid walbana 150 aad ku iibinaysid imise weeye equal to yaan leenahay markaan shaqaynayno shift iyo 8 aan isla taabanaynaa qiimahan ku dhufanaynaa kadib enter ayaan leenahay waxaa noo soo baxaya qiimihii guud ee aan kusoo iibsanay alaabtan 20kan mobile qiimihii guud aan kusoo iibsanay ayaa noo soo baxayo markaan sii iibinayno haddii aan iibino ay naga iibsantaba kasoo qaad 18 xabo ayaan dib usii iibinay 20kii ayaan 18 xabo ka iibinay mid walbana 160 ayaan ku iibinayba kasoo qaad 160 markaan ku iibino qaabkii loo shaqayn lahaa ayaan halkan intii aan iibinay sanadka ayaan halkan kusoo saaraynaa equal to ayaan leenahay waxaan ku dhufanaynaa maxaa la dhahaa quantity-ga amaba cadadka alaabtaan ku dhufanaynaa shift iyo 8 oo ku dhufaan taabanayna qiimahaan ku iibinaynaa taabanayna enter ayaan leenahay markaas qiimahan ayaan kusii iibinaynaa markaas quantity-gii mise xabaa noogu hadhay meesha qaabkii aan u shaqayn lahayn 20 mobile oo laga jaray 18 iibsantay laba noo soo hadhay labadaas qiimahaan mise noqonaysaa equal to ayaan leenahay qiimahan aan markii dambe saleskaan sameynaynay ku iibinay oo lagu dhuftay waa shift iyo 8 ku dhufashadu inta mobile noo hadhay intaas ayaa noogu hadhay marka 200 labada mobile waxa uu dhigmaa ka dhigan 360 waxay lacagtii doonaa noqotay ay u dhigantaa ka dhigantahay ma khasaaray mise waan faa'iidin qaabkan ku ogaan lahayn in sida ay ku tusaya imikana equal to ayaan leenahay alaabta noogu hadhay bakhaarka oo loo geeyay ta iibsantay ama saleska aan sameynay qiimaheegii oo laga jaray ayaan leenahay iibkii hore intay alaabta guud ahaan ay ahayd alaabtii qiimaha aan kusoo iibsanay markii hore laga jaray ayaan leenahay minus ay leedahay markaas 200 inaan halkaa ka faa'iidnay ayuu na tusinayaa 200 waa kan oo kan loo geeyay oo laga jaray kan iyo ka dhigantahay markaas qaabkaas kuwa kale haddaad doonayseen inaad shaqaysaan sidan aad usoo jiidaysaan mid walba si systemku uu nagu shaqeeyo automatically si systemku uu idinku shaqeeyo sidan usoo wada jiidaysaan sidana usoo wada jiidaysaan dhammaantood sidana usoo jiidaysaan isagaa nii shaqeynaya intan wixii ka dambeeya oo dhan isagaa idin shaqeynaya ka dhigantahay markaas imika tusaale haddaan inaan buugaagtan aan shaqeynaan u baahanay 24 dersan oo dersan walba lagu iibinayo 200 wuxuu soo baxayaa qiimaha uga guud intaasuu soo baxayaa haddaan 24kii 20 ka iibinay mid walbana aan ku iibinay 210 intaasay soo baxaysaa imisaa soo hadhay intii soo hadhay halkan uu noo soo dhigaya waa kan intii soo hadhay halkan uu noo soo dhigaya 4 xabaa soo hadhay 4 xaba xagee ku waxaan oo dhan ka yimaadeen kan oo kan lagu dhuftay iyo halkan imanay ka dhiganta sababtoo ah 4 xabee ku hadhay 4 dersan ee hadhay oo qiimahoogu mid walba yahay 220 iyo intan imanayso intaasaan halkan ka faa'iidna ka dhiganta markaas waa inaad fahamteen baan u malaynayaa haddaydaan fahmin qaybta commentiga ay igu soo weydiinaysaa casharkan darsigan wuxuu jawaab u yahay wiil iga soo weydiiyay asxaabteen qaaliga ka mid ah oo comment igu soo weydiiyay iyo ugu jawaab u yahay ka dhigantay intiina kalena waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen